Okay, su'aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan maxay kula tahay dhibaatooyinka Soomaaliya haysta maanta? Soomaaliya dhibaatada haysto runtii waxay ila muuqataa masiibo ay gacantooda ku kaydsadeen oo dhibaato ay u geysteen dad ama dad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiran oo diintiisana yaqaan dhibaato loo geystay darteed gardaran lagu dilay in masiibadan maanta taagan ay u dhacayso run ahaantii aniga waxaan soo taagnaa xilliyada ka mid ah oo waliba markaa dawladda siyaad bari ay talinaysay waxaan taagnaa 17 nin meel lagu dilay oo wadaada ah culimo ah meel iskool ah sida aad taqaanaan Xaaji Cali Yuusuf xirtiisa ayay ka mid ahaayeen asagoo markaa dad madaxa inta soo wato waliba si uu ku badbaadiyo nafsadaas darteed u soo kaxaystay kadibna markuu allaala markuu meesha ka soo dhawaado xabado uu maqlay dabadeedna uu ku orday salaanka uu fuul istaayana dhiig ayaa ka horiyay waxa uu ka gaaray intii yareed ee markaa xabada geesaha ugu dhacdo dhaawac ahaa uu baryootay wuxuu yiri intaan aan badbaadsada baawar aan keensada walaalayaalow yaa leega line dadkaas oo loo dilay qabiil sida Soomaalida ay isticmaasho waana dad qabiil ahaan loo dilay run ahaantii dhaawici yaraa markuu badbaadi isdhahay oo baxay gaarigan keensana uu yiri laga ogolaaday irid intuu iska bixin intii hartaal dhameystiray kadibna uu soo laabtay meesha ayuu barar ku galay maalinkan aan wada taagnayn ayaa wuxuu yiri cunuga maanta dhasho maalinkuu qaan gaaro oo xilkas noqdo soddon jir markuu gaaro maalinkaas ayay Soomaaliya wada sheekaysanaysaa run ahaantii aniga fikirdaan qaba soddonkina waxaa ka dhiman 12 sano wayna soo socotay maalin kasta waa la heshiin waayay marka masiibadan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanaga badbaadiyo waxaan looga badbaadi karaa ayadoo Ilaahay loo wada noqdo